gudoomiye ku-xigeenka golaha fulinta ee Ahlusunna wal Jamaa Maxamed Maxamuud Yuusuf Owliba ayaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo kismayo24.com isagoo ku sugan dalkan Kenya gaar ahaan caasimadiisa Nairobi isla mar ahaantaasna socdaalkiisa uga imaaday gobolka Gado ama Jubbooyinka waxaan jeclahay bal inaan ku soo dhaweeyo Sheekh Owliba aad baad mahadsantahay adeer waa ku soo dhawahay waxaan jeclahay inaan ku bilaabo su'aasha ugu horeysa adoo raali ah bal inaad noo faahfaahisid socdaalkan aad dalka Kenya ku timid waxa uu ku saabsanaa iyo ujeedadiisu waxay ahayd adeerta markaan ku faahfaahiyo waxaan u imid dalka Kenya dan shakhsiyan oo aniga xagga caafimaadkayga xaggiisa taas waa intaa weey waa tahay bal nooga waran gobolada aad ka imaaday oo Gado bal Ahlusunna meelaha ay ka taliso Gado ama ay ka haysato ama waxyaabaha ay ka qabato iyo macni awoodda ay ku leedahay Ahlusunna wal Jamaa gobolada koonfurta oo kale ama gobolka Gado waxaad ogtahay ciidamada Ahlusunna wal Jamaa iyo ciidanka dawladda ayaa ku sugan waxayna dagaalo muddo dheer la galeen ururka al-shabaab ama al-qaacida ayay la galeen qawaariijta dagaaladaas oo in badan ay kaga guuleysteen marka hadda su'aashaasi lama dhihi karo maxay ka qabteen lama dhihi karo in badan bad media ka dhageysay waa la ogyahay in badan laga dhageystay waxyaabaha ay ka qabteen laakiin waxa ka jira goboladaas oo haatan laga sheegaya ama gobolada Soomaaliya oo dhanba la qabeen laakiin gaar ahaan waxa saameysay abaar aad u daba dheeraatay oo runtii dad badan ay ku barakaceen dad badan ay naftooda ku waayeen dad ay ku qaxeen qaxootiyada ay soo galeen maxay kaalin oo ka geysatay Ahlusunna dhibaatooyinka ama abaaraha dadka haysta aad baad u mahadsantahay adeer taas way jirtaa inay dadka ku barakaceen guryo badan ku gubteen dagaaladii ay guryo badan ku gubteen way jirtaa abaar fara badan ayaa ka jirta dadka laba qodob baan u sameynay haddaan nahay Ahlusunna wal Jamaa iyo dawladda ku meel gaarka maamulka meeshaasi ku sugan waxaa kamid ah waxaan ugu qaylinay hay'adaha caalamka oo dhan ayaan u qaylinay in ay dadkaasi haddii waxa ay tari karaan ay taraan qodobka labaad dadka abaaruhu ay keeneen socda baabuurta lagu soo qaadaa goobaha ay ku nastaan magaalada waxa laga celiyaa sidii ceelasha biyo kale oo wadiyada meesha ay leeyihiin oo kale biyo nadiif ayaa la siiyaa wixii kale oo lagu tari karo ayaa lagu taraa dadkaasi waa la xanaaneeyaa amnigooda ayaa la sugaa markay soo galaan meesha goobaha Ahlusunna wal Jamaa iyo dawladda ay ka taliso si amaana ayaa waxa lagu geeyaa qaxootiga marka in badan baan u qabanaa dadweynaha ummadda Soomaaliyeed laakiin baahida ka jirta iyo abaaraha ka jira ayaa waxay yihiin wax dhaaf ah oo ilaahaygi dadka abuurtay inuu wax u qabto mooyee bini aadanka oo karin gobolada Gado oo dhan Ahlusunna ka talisa mase waxa jira gobollo qaarkood aysan Ahlusunna tagin oo wali aysan taladooda gaarin hadeer waxaa jira degmooyin aysan wali gaarin degmadaasi waxaa kamid ah degmada Baar Dheere ayaa kamid ah insha Allah aydan waxaan jecelnahay mar dhow in gacanta lagu dhigi doono ummadda Soomaaliyeed loo gargaari doono dadkaasi qawaariijta oo haysata dhanka kale waxaa jira shir ayaamahan bal hadal hayay oo qabanqaabadiisu ay ka socotay gobolka Galgaduud gaar ahaan gobolka degmada Cabud Aqal in lagu qabto shirkaasi maxaad ka haysaa waradi shirkaasi wuu jiraa shirkaasi gobolada dhexe ayaa shirkaasi Ahlusunna wal Jamaa joogto shirkaasi ayaa qabsanaya mid guud oo Ahlusunna oo dhan ka dhaxeeya ma aha mid gobolada dhexe ah ayna ku dooranayaan maamul gobolada dhexe ay ku midaysan yihiin ayay ku dooranayaan Ahlusunna qaybaheeda kale meel kastoo ay joogtaan waxay taageeraysaa shirkaasi in uu qarsoomo cid alla cidii ay soo doortaan ayagu ay doortaan goboladaasi oo ay u arkaan inay hogaamin kartaan waa taageeraynaa idaacadahan ka taageeri doonaa marka laakiin shirkaasi waa shir khaas ku ah gobolada dhexe dadka qaar ayaa isla dhex maraya in shirkaasi Ahlusunnada gobolada dhexe qaarkood ay isku khilaafsan yihiin ama ay isku raacsanayn oo qaarna ay leeyihiin gudoomiyihii horeeto waa in meeshiisa loo day qaarna ay ku cusub ay u ololeynayaan taas maxaad ka ogtiin arrintaasi waxaan ka ognahay shir baa ka horreeyay wuxuu ka dhacay Addis Ababa waxaa lagu heshiiyey in shir la qabto shirkaas dhammaan laga soo qayb galo cidii la doortana lala shaqeeyo intaas ayay ku heshiiyeen ayaga dhexdooda marka arrintaasi shirka maanta la qabanayo cidii lagu doorto ayaa shaqeynaysa marka taasi waxay isku raacsan yihiin baan leenahay cid hadda ka gooni ah
oo gobolada dhexe ka mid ah ma ogin. haddaan usoo noqdo dhanka dawladda ehel sunna ahaan sidee baad haatan wada shaqaynta dawladdiina ay tahay maadaama ra-iisul wasaarihii hore la casilay ra-iisul wasaare cusub lasoo doortay ehel sunnadii markii uu ra-iisul wasaarihii hore uu xukunka hayana ehel sunna ay dhaliilo badan ka tirsanayeen ra-iisul wasaarihii horeeto haatan sidee baad ula shaqaysaan ra-iisul wasaaraha cusub? wallahi dawladda Soomaaliya waa dawlad tabar daran, waad ogtahay dalka iyo dadka waxba badan ama qaban karta. waxaan leenahay tabar Allah u yeelo, laakiin waxa macna ah in wax la dumiyo waxa ka fiican in wax la dhiso. marka annaga sidii dawladda ay ku xoogaysan lahayd haddaan nahay Ahlusunna wal Jamaaca oo nimankan khawaarijta oo dalka iyo dadka furtay looga saari lahaa, intaas baan annaga taageeraynaa. dawladdana waxaan leenahay dawlad tabar leh Allah nooga dhigan leh. waxaa kaloo jira Sheekh Awlibaax arrimo ayaamahan la isla dhexmarayay oo ah website ay ehel sunna furatay. website-kaasi maxaad ku ogtahay? annaga waxaan soo dhaweynaynaa Ahlusunna wal Jamaaca inay website-yo badan yeelato, idaacado fara badan yeelato, ay horumar fara badan gaarto. aad baan soo dhaweynaynaa. laakiin website-ka aad weydiisay oo hadda waxaan filayaa inuu meelo ka shaqeeyo badan. website-kaasi waa ognahay. waxaan leenahay in uu dalka iyo dadka ummadda Soomaaliyeed uu u shaqeeyo si cadli ah u shaqeeyo. intaasaan faraynaa. maxay ahayd dad badan oo waxaa jira dhaliilaya website-kan oo dhahaya macni dana gaara ayaa loo furay, dad gooniya oo qaaso oo ama dibadaha jira meelo kale jira ayaa warar ku qora aan loo baahnayn. dad baa website-kan furtay oo ehel sunna ku kala qaybinaya maahan mid ehel sunna isku raacsan tahay. taas ka waran ayada? arrintaasi weli ma aanan anagu waxooga kama hayno. sababta waxa weeye meel Ahlusunna lagu kala qaybiyey iyo website kala qaybiyey midna ma aanan arag. marka cidda wararkaas ay ka yimaadeen waxaan qabaa inay tahay shakhsi dan gaar ah leh cod Ahlusunna iyo mowqif Ahlusunna ay leedahay midna ma. waxaa jira website-yo badan oo ehel sunna wararkeeda lagu qori jiray ama ha ka qayb qaateen ehel sunna ama wariyaal ama saxafiyiin kale ha ku qoreen. maxay tahay website-kan aad ku magacowdeen magaciina ujeedada loo furay? waad aragtay oo markii ama idaacadaha la furayo ama website-yada la furayo waa codka nabadda, codka dawladda, codka idaacadda. marka codkani website-kani waxaan ugu talagalnay ama website-yada Ahlusunna oo dhan ay leedahay. waxaan jecelnahay in magaca Ahlusunna wal Jamaaca lagu qoro. baan soo dhaweynaynaa keligii maaha. marka sidaas inuu uga duwanaado website-yada oo noqdo website Ahlusunna wal Jamaaca ay leedahay lagu magacaabo baan yaa loogu talagalay. sidaasaan isleeyahay. waxaa kaloo la sheegaya inay jiraan shirar ay ehel sunna qorsheynayso inay dalkani Kenya ku qabato. maxaad ka ogtahay adiga shirarkaas? aad iyo aad baad u mahadsan tahay. shirkaasi hadda wax hordhaca kama samaynayo, balse waxaan fiirinaynaa xilligii uu yimaado baan ka jawaabaynaa. waa tahay Sheekh Awlibaax maxaad ku boorin lahayd dadka Soomaaliyeed oo abaaru haystaan ama kuwa wadamada shay ku maqan ha ahaadeen kuwa jooga dalkani Kenya qurbaha kuwa qaxootiga kuwa meelo badan jooga iyo waliba ehel sunna meel kastoo ay joogto, maadaama khilaafyo fara badan ayada lafteeda laga dhex sheegayo, adigu ugu dambeyntii maxaad ku soo gunaanid lahayd ama waana ahaan aad u dir lahayd? aad iyo aad baad u mahadsan tahay. horta ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay midnimada ummadda Soomaaliyeed baa macno ah. in ay Ilaahay abuurtay ka baqaan baa macno ah. in diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda ay hormariyaan baa macno ah. marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay midnimo iyo walaalnimo idin deeqdo. ummadda Soomaaliyeed intaasaan leeyahay. midda labaad abaaraha haddii waxa keenay Ilaahay baa keenay, isagaana bixin kara. haddii bini aadamku uu iskhilaafo wax macnaa ma keeni karo. laakiin haddii dadku heshiiyo oo midnimo uu isku raaco wax badan baa u qarsoomaya. tan labaad waxaan leeyahay Soomaaliya cadow bay leedahay. cadowgaasi dalka iyo dibadda waa jira. waa nimankani khawaarijta oo dalka iyo dadka ummadda Soomaaliyeed gowracaya oo adduunkii cadow ka u noqday. nimankaasna waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali ah nimankaasi waa in sida uu ku suulin karo uu ku suuliyaan leh. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka golaha fulinta ee Ahlusunna wal Jamaaca Maxamed Maxamuud Yuusuf Awlibaax oo noogu waramayay xarunta dalka Kenya uu ku leeyahay Radio Kismaayo oo aad ka dhageysataan kismaayo24.com.